soo dhawaada aqyaarta sharafta leh meel kastoo caalamka aad ku joogtiin waxaan idinku salaamayaa salaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu sideen leeyahay waxa isfari jirnaa ka bilaabeena page inflow la saaro haddaad ma aragta xataa comment aad rabin inaad soo xariiqdo comment aad soo xariiqdo like iyo share inay garab istaagtaa ku sheegaya oo ma aragta dhiirigelin ay tahay adaa meel walba gaarsiin karno meel walba aan gaarsiin karo walaal jira taajir oo joog hadda horano la joogtay hadda ma aragtay hawshaada qabso an hawsheeda bilaawaya suluta ku leeyahay salaana ku saaraya gabar iyo wiil waxa tahay intaas ka badan wax kale sheegi kar ma garanaano shaqada qabsana waxaan rabaa maanta inaan kula wadaago hada ogolaatid waaya waa ay saamaxay waxaan rabaa inaan kula wadaago waa kula wadaagaya maxaa saamixitaankaaga waa iska sii wadaa hawsheeda igu qaado waxaan rabaa inaan kula wadaago round 2 waa kula soo wadaago round 1 waa kula soo wadaago round 3 rabaa inaan kula wadaago waxyaabay ka dhac jaalayaasha la bixi goolasho kulanka uu goolasho badnaa shaxdi ugu wanaagsaneed round 3 intaas oo dhan rabaa inaan kula wadaago laakiin waxaa jiro in uu group stage ku soo dhamaaday waa soo dhamaaday waxyaabay laga diiwaan galiyay waa kula wadaaga xogihii inta ani ka haye inta qoraaye inta jaraa'idada lagu soo qoray inta meelaha lagu soo qoray inta soo aroorin karo waa soo arooriyay waxaa jiro dad fara badan oo ma aragtay nooga xeel dheer sportska inta ani ogahay iyo inta khabiirada sportska iyo inta meelaha wax ka soo xigtay ogiin in ka badan koob daawanayay meel fara badan ilal fara badan ku xiran ma aragtay haddana waxooda la aamusan fadlan hoos noogu soo xariiq noo cimaamad hadda ma aragtay hore noo la joogtan waxa ku leeyahay jiro joog karaama ku haya sulubto barnaamijkeena guud galeena koobka adduunka 2022 waxa la leeyahay wuxuu iska noqdaba wax aan ma aragtay macquul gal ahayn ama xaqiiqaba ahayn saacadii ma aragtay af Soomaaliga iska waasac waa saartu qaad waxa xaqiiqo ahayn waxa kamid ah lagu leeyahay inuu xaqiiqo ahayn waxyaabaha xaqiijinayo World Cup-ka xaqiiqo ma markii lagu leeyahay waxa kamid ah waxyaabaha xaqiijinayo Sacuudiga inay ka badiso waa waxyaabaha la iloobi karin kamid Sacuudiga in Argentina garaacdo adiga daawana aan ku weydiina Sacuudiga misliis Argentina ay ka badinaysa maya wallahi misliis ma jirto qofka xataa dadku waan ciyaaraha wax saarta hada maya kuma fikireeninbo waxa waaye waa la galiyay meesha saagilisay deeqaas dhex dabashay waxay dhigay Argentina way saarseen hada waa laga yaabaa dad qaar oo ma aragtay iska indha adeega inay saartaan laakiin ma dhici karto waxa kale oo ma aragtay la yaab ka mid ah leeyahay World Cup-ka Japan inay garaacday Spain iyo Germany ay garaacday group labadooda ku jiraan inay kaalinkooda ugu soo baxdo macquul galmad adini sidhiis Japan kaalinkooda ku soo baxayso group kan waliba labadoodana way garaacaysaa mislihiisa maya ku soco Morocco waxa lagu leeyahay sidoo kale Morocco group Croatia iyo Belgium ay ku jiraan ee kaalinkooda ku soo baxday waxa waaye waa waxa la yeelsan karin South Korea sidoo kale iyadana waxay sameeyeen waxyaabaha aan inaba caadi ahayn sababtoo ah iyada ku soo baxdo waxay ku soo baxday goal scoring ku soo baxday dadka qaar ba xal weydiinay waxay ku soo baxday goal scoring intee World Cup uu socday waxay dhalisay 4 gool dhalisay 4 gool ay dhalisay laba gaane ka dhalisay labana waxay ka dhalisay xal waxay ka dhalisay Portugal Uruguay maxaa dhalisay waxay dhalisay goolal ma dhalinin laba gool bis ay dhalisay labadii gool ay dhalisay waa laga badiyay marka goal scoring-ka dhankaas looga fiicnaa dhankaas looga soo baxay South Korea waxay ka soo baxday iyada naftirkeeda groupkaas ka soo baxday Uruguay iyo Portugal ee ka soo dhaxbaxday madaxa ka soo dhax taagay ciyaar maaha meesha siito yaa isdhahay naftirkeeda waa laga soo dhax bixi karaa Australia groupkan Tunisia France Denmark Australia adi ahaantaad ay ku fikiraysa fardaha madow iyo France la isdhahay way soo baxay samaha waa Denmark iyo France Denmark ay dishay waana soo baxdeen Australia waxyaabaha aan laga filnayn waa Morocco naftirkeeda taariikh la sameeyay akugu sii daro Morocco waxay sameeyay waa xulka kaliya ee groupka kaalinta koowaad kaga soo baxo tan iyo Nigeria 1998 Nigeria kaalinkood kaga soo baxday groupkeeda marka tanna sidoo kale ta groupkeeda kaalinkood kaga soo baxday xul Afrikaan ah waanu micnaa qabteeda lama heeso karo goolkii ugu dhaqsiyaha badnaa waxa dhaliyay Alphonso Davies inta group stage uu socday wuxuu ku dhaliyay 16 ilbiriqsi maya 68 ilbiriqsi ku dhaliyay marka inta xogahan la aruurinay oo laga soo bilaabo 1966 xogahan la aruurinay waxa jirto gool ka dhaqsiya badan 2014 29 ilbiriqsi waxa lagu dhaliyay gool Dempsey ku dhaliyay Ghana uga dhaliyay mid kale laba ciyaartoy ayaa jirto Africa laba ciyaartoy ugu da'yar Kudus iyo waxa waaye
أحمد موسى أو جول الكدلي واللي كابكا لو جول كدلي ciyaartooy da'yar kudhees awali weyn wuxuu ku dhaliyay 20 iyo 2 sano iyo 18 maalmood uu ku dhaliyay kudhees labadiisa gool halka Axmed Muusa uu ku dhaliyay 21 jir asoo waxa ugu weyn oo ma aragtay in uu macquul gal u ahaan ku sheegaya waxa leeyahay ma jiro hal xule waa hal xule ma jiro oo shantiisi saddexdiisi kulan badiyay ma wajiro hal xul oo saddexdiisi kulan badiyay saddexdii kulan cimaamate Cameroon waa xulka kaliya ee Africa ee Brazil jiiday ee dilay xasuuq u geystay koox kale Afrikaan kama aysan badin Kai Havertz waa ninkii labaad ee ma aragtay intuu bedel ku soo galay laba gool u dhaliyay Jarmalka sidaa hore waxa uu sameeyay Scholle oo Brazil 2014 Manuel Neuer waa gool hayaha ugu safashada badan World Cup-ka wuxuu ka safasho batay labadan boortiiro ka safasho batay mid waa Brazilian midna waa dalkiisa Jarmal waa asaa ugu jiidano Manuel Neuer wuxuu saftay 19 kulan saftay labadan waxay saftay 18 kulan waa Tafarel iyo Mayer labadaas boortiiro Tafarel waa Brazilian Mayerna waa Jarmal waa marka labadaas boortiiro uu jiiday 18 kulan ay safteen Alvaro Morata waa ninkii labaad ee saddexdiisi kulan ee ugu horeysay Spain gool u dhalinayo tan iyo 1950kii Zar mar uu sidaas u sameeyay asaa maarata hadda imaamadiisa la heesan karin waxa kale oo jiro Japan waa xulka saddexaad ee guuleystay iyagoo ma aragtay lagu nasiy kambi koowaad oo nin loo guridano laba jeer waa xulka saddexaad ee guuleystay laba jeer iyagoo kambi hore qaybta koowaad loogu nasiy 1-0 yaa lagu sameeyay mataqaana dad ma aragtay la tacliish maaha Spain iyo waxa lagu sameeyay Germany lagu sameeyay no marka waa soo noqdaan shaqadooda qabsadeen waa badiyeen waxa sida hore u sameeyay marka labada xul ayaga ku horeeyay waa xulka saddexaad ayaga Soomaa labada xul ayaga ku horeeyay waa Brazil iyo Germany Brazil waxay sidaas sameeyay 1978 halka Germany uu sameeyay 1970kii marka Japan taariikh far badan ay ka sameeyay jiilka dahabiga la leeyahay jiilka dahabiga oo wali ka iskaga xaray sida jiilka dahabiga hore England wax waa qoon waayna la jiilka dahabiga England la tacliish ahay cambuul carab saarna iska hayna la jiilka dahabiga England wax ay qabteen oo Ilaahay uunta ma jirto jiil khasaaro aha hada jiilkan waa jiil khasaare Belgiumka jiilka dahabiga oo khasaaro waa oo fashil ku soo dhameystay World Cup-ka jiilkan waa dhamaaday De Bruyne waa aad u waaweyn oo dhahay 2018 oo qalantay inaa World Cup ku guuleysan hadda ma aha rafaad far badan waa hareeno waxay raaxaystay ma jirto habeenkii Lukaku waa khasaari waxa performance kuma jiro Lukaku waa Inter Milan oo injury iyo binji iyo balaayo iyo waxa ugu jira waa imaada meeshan waa wareerila marka jiilkan fiir da'dooda waa 29 jir waa ninka ugu yar Batshuayi iyo waxa ugu yar iyo Lukaku iyo Torgan Hazard ugu yar inta kale waa 35 kor u dhaafeen kaliya ma aragtay laba wadan ama aragtay intee 700 oo baas ay sameeyeen kaliya laba wadan 700 oo baas intee sameeyeen adana laga bidiyay yaa ma taqaan labada waa labadii Spain iyo Germany Japan lana ka badisay koox kale ma ku sameeyay sidaasito Japan hadana record kale u siyaala leeyahay waxay sameysay waa kooxda kaliya ee taariikhda World Cup كانستي بقول كي تمن يتدور بوزيشن كانستي حدنا قوليستي بقول كي تمن يتدور بوزيشن أنتي حكت على أرونا كون سقال بقول لحلي أنت حكت على أرونا وكواحد كلي إيه لحايا ونو أنت سميناسي إن تمن يتدور بس بوزيشن لإماتو حدنا بديسو ياب ورانا جاوا حرقنا ودهني كي سما قرنيسي ميزي وعياريان كليه أما عياريان كي وهري لا بريقونو World Cup laga qabto mid waxa laga qabtay 18 laga qabtay Iceland ka qabatay daqiiqadii 64 inay heedo jaclaha kulanka Aguero goosh dhalna Iceland ee Barajanes mis Aguero abreejay Iceland la hormartay kulankaas oo qatatada ugu soo baxayeen waxa kale oo jirto Brazil waxa kale oo jiro Messi waxa arintan asaga taas waa ku xigeen tan amaantiisa raaci waxa jiro Messi waa ciyaaryahanka kaliya hadana ee group stage aan waligiis Elise ku harin ma uu ku harin group stage بلا وقبا وصوص على 90 minute group stage waxa la dhahay kuma har waa shaqeysanaay Brazil waxay noqotay xulka
lagu sameynin shoot on target labadeeda kulan u horeysay shoot on target la dhaxay laguma sameyninbo ya waa cimaamadneed no marka sidaa hore waxa u sameeyay Faransa hore u sameysay 1998 Faransa marka 98 siyaas u sameysay sidoo kale waxa jiro kulanka Argentina iyo Poland iyaga naftirkiisa kulankaas wax shoot on target ya laguma sameyn Argentina iyada Argentina madaxeeda dejistay inta waa taariikhdii loo qoray group stage-ka waxyaabaha aan ma aragtay aan ka soo tagay ama waxyaabaha iloobay ama waxyaabaha aan arkin ama waxyaabaha ay ugu dhaanto fadlan hoos noogu soo xariiq sida hore kuugu sheegay waaye aanu imaano round 3 maxaa dhacay si aad u ogtihiin round kasta waxa la ciyaaraa 16 kulan 1 iyo 2 iyo 3 kulli 16 kulan la ciyaaraa 16 kulan la ciyaaraa round 3 waxa la dhaliyay 39 gool waxa la dhigay laba rigooro labada rigooro la dhigay mid odayaal ay qabtay Lionel Messi mid Ismail Sara loo dhigay waa cimaamato waa dhaliyay kulanka ugu goolasha badnaa maaragtay round 3 wuxuu ahaa kulankii Germany iyo Costa Rica 2 Germany 4 6 gool la dhaliyay sidoo kale waxa la iska dhaliyay laba gool la iska dhaliyay waxa la bixiyay konton iyo 6 jaala la bixiyay iyo hal red card la bixiyay Vicente Abubakar si red card ka siito intuu socday round 3 16 kulan la ciyaaray hal kulan bareej la galay 15 kaleeto waa la kala badiyay shaxdii ugu wanaagsaneed round 3 waa Rajat Bortieriga Uruguay iyo Molina cunug Argentina duwaha dheelaaye iyo Yang Goin Kimi ma laha kuwan South Korea difaacooda dhexe iyo Khalid Koulibaly iyo Gandri Tunisia tareegeeda Molina Gandri Fuller oo Switzerland asana u dheelaayo iyo Rasketo ma laha ki Uruguay asana u dhashay waxa waa weerarkana marka intaas dhaxda waa weerarkana waxa waa difaaca inta weerarka waxa waa Rash iyo Abubakar iyo Lucky waa marka shaxdi ugu wanaagsan waa taasa round 3 intaas waa marka jaalayaasha la bixiyay kulanka ugu goolasha badnaa goolasha la iska dhaliyay on goolka kulamadii inta ma aragtay la badiyay iyo inta oo baraajada la galay waa ku wada sheegay marka hadda waxa u gudbeenaa guud ahaan group stage waxa la ciyaaray 48 kulan 3 meelo min 16 ya waxa la dhaliyay 120 gool la dhaliyay 12 gool 120 kaas kamid ah daqiiqada 90 wixii ka dambeeyay la dhalinaay waa xasuustaa labadii gool Iran ay ka dhalisay Wales daqiiqada 90 wixii ka dambeeyay la dhaliyay 14 rigoor la dhaliyay 9 kamid waa la dhaliyay 14 rigoor la dhigay waaya 9 kamid waa la cimaamada waa la dhaliyay 5 kamidna waa la qabtay laba gool la iska dhaliyay tartanka intuu socday 10 bareej la galay 10 kaas bareej la galay 6 kamid waxay ku dhamaatay 0-0 eber ku dhamaatay kulanku ugu goolasha badan waa wada taqaaniin Iran iyo Ingiriiska waay iyaga kulanku ugu goolasha badan waa 8 gool la iska dhaliyay marka cimaamadaas lama heesan karo ya waxa la bixiyay intuu socday group stage ko dhan 167 jaala la bixiyay iyo laba red card la bixiyay goolaliyaasha ugu sareeyo maaragtay inta group stage ku socday waxa waaye Alvaro Morata Kylian Mbappe Marcus Rashford Ina Valencia Gogba iyo waxa waaye intaas waa shantaas nin waa marka shantaas nin ugu wanaagsan boqorka caawinta group stage-ka waa Harry Kane 3 gool u caawiyay marka goolhayaha ugu wanaagsan group stage-ka waxa waaye Bortieri Croatia waxa la dhahaa logo Livakovic ma laha xas magacaas magaciisa adeeg waa Livakovic ma laha Bortierigaas hal gool bis laga dhaliyay walow ay jiraan laba Bortieri oo ma aragtay ninkan wuxuu ugu fiican yahay 3 kulan waa 3diisa kulan u dheelay hal gool la dhaliyay Alisson Becker waxa gool laga dhalin labadii kulan ku soo bilowday wax shoot on target lagu ma sameeynin marka kulankii saddexaad xale ma uusan dheelin asaga Real Man City Bortierigooda dheelay Edison dheelay marka ninkaas halkaas uu ku bixay asaga 3 kulan cimaamadan marka waxa jiro nin 3 kulan dheelay oo ninkan ka fiican wax qabad ahaan ka fiican ninay Sisini halkaan biyo wuxuu save gareeyay 18 maya 8 save sameeyay hal half kan biyo Argentina ku sameeyay hal half kan biyo uu 8 save sameeyay oo 8 badbaadin uu sameeyay 8 badbaadin oo cajiib uu sameeyay maxaa kale ku soo hartay World Cup intuu socday Sisini 17 save sameeyay laba penalty uu qabtay marka Bortieri cimaamadiisa la heesan karin oo ahaa laakiin waqtiga ka helay uu haray
inta ku soo afmeeraya xogaheeni aan ka soo aruuriyay group stage-ka ee World Cup-ka ka soo aruuriyay inta muuqaal kan la mid ah dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo hooshii waa qabsana hooshiina qabsada. Assalaamu calaykum.